dhalinyarey tusaalaha idin noqoto dalkan rajadiisu waa soo kacday wuxuu go'aansaday in uu ka baxo xaaladda uu ku jiro oo u gudbo xaalad dimuqraadi ah islaami ah horumar ah inuu galo haddaba qodobka intaas aan ka gudbo qodobka 96 ee dastuurka wuxuu ka hadlayaa dhaarinta madaxweynaha waxaana dastuurka uu waajib ka dhigayaa in uu gudoomiyaha maxkamadda sare uu dhaariyo saas daraadeed waxaan u yeerayaa mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya ee cusub mudane xasan sheekh inuu yimaado dhaartina qaato madaxweyne gacanta saar kitaabka waxaan kugu dhaaranayaa dhaartii dastuuriga ahayd ee qodobka 96 ee dastuurkeena cusub uu sheegayo hadallada waad iga daba odhanaysaa madaxweyne waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabilaahi tawfiiq mudane madaxweyne awguuriyo aku aguuriyeenayaa waxaa kuu bilaabmay xilkii madaxweyne waana xil culus waxaana loo baahayay mudane madaxweyne inaad aad u akhrido qodobada dastuurka ay sheegaya xilka madaxweynaha waa mahadsanta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة بدن إيمال دير أو شقاء يا الله صومري خطبة دير وقت اللي جيدي لغو مجره لكن حدونا يا كان دور قضب أو مهمة إنها كسو جيدي أما كاشيغو marka koowaad waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intii idooratay iyo intaan indooraninba dulqaadka ay muujiyeen waqtigii adkaa ee ay socotay doorashada waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda oo si hagaagsan u maamulay ilaa iyo intii la dhisay ilaa la doortay baarlamaankan iyo guddoonkiisa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee sida habsamida ah u daadihiyey doorashooyinka iyadoo ay ku dhex shaqaynayeen duruufo aan aad u jiljilcanayn oo adag waxaan doonayaa sidoo kale inaan u hambaliyeeyo inaan u mahad celiyo beesha caalamka ee Soomaaliya mar walba la garab taagan hiil iyo hooda farsamo iyo midda dhaqaale iyo midda moralka ah waxaan u mahad celinayaa sidoo kale guud ahaan intii ka soo shaqaysay in processkan taariikhiga ah ee madaxweynihii hore jamhuuriyadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay inuu yahay process taariikhi ah waxaan qirayaa waxa maanta halkan ka dhacay taariikhda Soomaaliya inay bog dahab uga qornaan doonaan waxaan sidoo kale iyo si lamid ah si weyn aad iyo aad u weyn ugu mahad celinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa saaxiibkaygii shalay waa saaxiibkayga maanta
wuxuuna ahaan doonaa saaxiibkayga berri haddii alla yiraahdo. waxaan ku ammaanayaa oo aan ku hambalyaynayaa isbeddelka taariikhiga ah ee intii xukunka uu hayay Soomaaliya ka dhacay. waa arrin taariikhda Soomaaliya ay xusi doonto, magaciisuna mar walba uu ka muuqan doono taariikhda Soomaaliya, inuu nasiib u yeeshay inuu hirgeliyo arrinta maanta dhacday dalka inay ka dhacdo. xukuumadihii kala duwanaa iyo madaxdii xukuumadahaas ee ayaguna u sabab ka qayb qaadatay arrintaani maanta inay dhacdo waa u mahadcelinayaa. dhammaan waxaan u hambalyaynayaa shacabka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay waad ka timaadeen waddadii dhibka badnayd, waddo toosan ayaad haatan cagta saarteen. inta ka dhiman sii wada. waxaanan shacbiga Soomaaliyeed aan weydiisanayaa gacantooda hagar la'aaneed si dalkeenna dowlad gebigiis ka hana qaada ay uga dhaqan gasho, Soomaaliyana ay ku soo noqoto beeshii caalamkeed oo maanta bilaabatay. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa duruufihii dhibka badnaay iyo waayihii dhibka badnaay aan soo marnay inay noqon doonaan beej la rogay oo laga soo tegay, haatanna uu noo bilowday beej cusub. beejkaas cusubna shacabka Soomaaliyeed la'aantiis wax fiican kuma qormayaan. sidii kuwii horoo kale waxaan rajaynayaa wax ugu fiican inay ku qormaan. mar kale iyo mar kale waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa jiri doonaa maalinta caleemasaarka rasmiga ah waa la soo sheegi doonaa haddii aan la yidhaahdo. kalfadhigii koowaad shirkii sagaalaad ama kulankii sagaalaad wuu xidhan yahay.